aadan xaashi ceyro wuxuu ka mid ahaa aasaasiyaashii maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab al-qaacida wuxuu fikirka xagjirnimada qaatay isagoo aad u daayar ceyro soo marin tacliin nidaami ah mana lahayn aqoon diinad oo ku filan waxa kooxda dhexdeeda loo yaqaanay macallin aadan macallinimadaasi ma ahayn tan quraanka ama mid aqoon kale ah waxaan dhalinyarada u bari jiray si loo rido qoryaha loo furfuro loona xirxiro sida miinooyinka loo aaso iyo si dadka loo dilo aadan ceyro waxa uu la lug helay kooxdan xagjirka bilowgii sagaashamaadkii markaasuu ka mid ahaa gacan-yarayaasha xasan daahir aweys goor dambe waxa uu ku faraq xirtay kooxda argagixisada ee al-qaacida oo joogitaankeeda Soomaaliya si xoogeysay xilliga wuxuu gabaad siiyay oo Muqdisho ku soo dhaweeyay dagaalamayaashii iyo horjoogayaashii shisheeyaha ee al-qaacida u soo dirtay Soomaaliya dabayaaqadii sagaashamaadkii aadan ceyro wuxuu ka mid ahaa koox Soomaali ah oo tagtay Afghanistan si uu soo minguuriyaan tijaabadii ururka Taliban ee ka talinayay Afghanistan iyo al-qaacida oo marti u ahayd muddo yar kadib waxaa soo xoogeystay qulqulka ajaanibta ku soo degaya ceyro isaga ayaa Muqdisho ku soo hogaamiyay Axmed Godone Ibrahim Afghan iyo sharuudayaal kale oo asaasay ururka argagixisada ee al-shabaab aadan ceyro wuxuu hormuud ka ahaa ololihii lagu laayay saraakiishii militariga iyo sirdoonka Soomaaliyeed ee khibrada lahaa ee lagu ugaarsaday Muqdisho iyo meelo kale oo dalka ah taasi oo u gol lahaayeen in aan dib loo helin ciidan Soomaaliyeed oo waxtar leh waxa uu sidoo kale sabab u ahaa dilal lagu bartilmaameedsaday dad badan oo arrimaha bulshada u dhaqaaqi jiray aqoon-yahano caan ah suxufiyiin Soomaaliyeed iyo culimo diin ayaa ka mid ahaa dadkaas aadan ceyro waxa uu dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed u horseeday inay qaataan fikirka xagjirka ah waxa uu geliyay dagaal aysan garanaynin ujeedka ay u dagaalamayaan iyagoona u bareeray dilka kuwii dad ugu dhawaa ceyro oo ahaa horjoogihii dhanka ciidamada ee maleeshiyaadka al-shabaab waxaa lagu dilay duqeyn gantaal magaalada Dhuusmareeb 1 May sanadkii 2008